مصبح وحوها نينكي قبل لمدة ديدنا وسيركي كليها وسيردين عقالة معها قبل كساحل دي وحكلوا كم إذا عيبك أو ساحل وقابو مركي وجوليستي دوريات طبعا حل أو معها قبل كساحل كم إذا وحكون ناس نتشي ده الكيس معها أما أو مالك لك كياني مدحويني هنقول إن سيدي معها قرقوديه مدحوينونا مركي وكدكتي وحوري 10 سنتي بان محوها أي كده 5 مليون إلى 4 بقولي 6 مليون سنة اللي حقانا كوهينو أيوب محوها كلب حي بنجية لعكتينا محوها من دعربلق إلى برعو إلى أودويني. هذا ورئيس كوبان والله يرلند دونه حلبان حلدار وكمده حلبان هذا قلها وكيلة الصومالي الآن كان مده حسب معارض كودني إن حلبان وجهري وحكوا يديني يا بل حالات قبل كاسي ساحل بل ما أنتوا نجور بحي. ساحل حالات دي سون كدر السنة دي وحقوقينها استوى الله يرحمه. مدحوينونا مركي وكدكتي وحوري 10 سنتي بان محوها أي كده سقوا ولي بان حقوا لها إنه الشركات بريفة أي لا ضحي وحق عنت الدولة ده كل شيء ربما مدحوين وحكي دين كرا لكن وحق عن كرا ما يقف كلا ليه هي أما جنا سيد ليه هي كم دين كرا وحنا هاي ضد كأنبوك كأمسين يوصلها حل جالس كقداف لكنه وحب لك الدينين بين قانسة وحنسر بقى إن يرس رأس حل يسبرم محوها هاي مصبحي رأس حل مصبحي وأنا أقول وأقوم بأنا ولا خيني وحوي وحلي اللي بحنك أنا أقوم بالحكريته مركا مصبح وحوها نينكي قبل لمدة ديدنا وسيركي كليها وسيردين عقالة معها قبل كساحل ديدي مركي أنا عقالة وديدي معها مصبح ديدي واكي معها كعاي شركي دبا تنوى تيليري واكي أنا استقلاب حياة معها رفت كيرفنيسي معها كلاب حي وحكلوا أنا حسوسنا يا مركي قبل لمدة الساحل السميني مركي حلبان هذا لبيه طبعا ساحل إيو رجابة إيو صولي السميني مركينا وكسور تشيستي سيد محمد كان بين لبدي حبنود مع حسب كل ميك السعودي دبتنا سيدي أو الرفاي طبعا حبنود بلغ سو غارسي الله بو كغوست waxa kale oo kamid caybka aw saaxil u qabo markii uu guuleystay barsaabkeedii markiiba wuxuu bedelay gabiile haddana in yar ka bacdi wuxuu u bedelay muxuu ahaaye aynabo 27 sano barsaabkii saaxil wuxuu ku soo dhameystay muxuu ahaaye aynabo ku dhameystay taasana ku tusaysan caybka uu saaxil u qabay inaanu ogolayn gobolnimada saaxilba waxa kale oo kamid ah dhammaan tabashooyinkii muxuu ahaaye odayaashii daniya duceeyo muxuu ahaaye haldoorkii iyo waxgaradkii saaxil ay soo gudbiyeen iyadana muxuu ahaaye dhagu ka furasta way xiliban haddii inta ku sii socono dadka deegaanka gobolkaasi saaxilaad ka soo jeeda waxay ka cawdaan saamiga ku leeyihiin in xukuumadda madaxweyne Muuse Bixi bal maxaa ka khaldan saamigaasi saamiga xukuumadda dhexe ay ku lahaayeen way haystaan laakiin saamigii heer gobol ama heer degmo ayaa muxuu ahaaye ka maqan oo saamigii dhamaantood dhowr iyo 10 xil oo muxuu ahaaye gobolka saaxil kamid ah wuxuu ku naas nuujiyay dad ehelkiisa ah muxuu ahaaye ama uu meel kale ka keenay way safar buu madaxweynuhu ku baxay dhawaan waxaan ku marayaa gobolada bariga maxaa isleedahay safarkan uu kaga duwan yahay safaradii hore madaxweynuhu ku bixi jiray safarka madaxweynuhu muxuu ahaaye waxa weeyaan wax la dhaar artificial campaign madaxweynuhu uu og yahay inuu muxuu ahaaye aan cidi taageersanayn ama muxuu ahaaye inuu muxuu ahaa gelin horeba ka tagay meesha marka wuxuu sameeyay qura lacagtii kharashka ahayd ee muxuu ahaa isgaadhayntii miisaaniyadda la isku celcelinayay ee miisaaniyaddii dhammaydna uu kansalay ee muxuu ahaaye ay u dhimatay ayuu la baxayo 5 milyan ilaa 480 milyan sano loo xogaana ku hayno ayuu muxuu ahaa kala baxay bangiga lacagtiina muxuu ahaa min dacarbuluq ilaa burco ilaa oodweyne ciduu shilin u dhiibay oo gaarsiiyay ma jiro dadkii soo dhaweynayay marka lacag safarkan kula baxayay ujeedo kala muunahay muxuu ahaaye gaadiid qurux badan dee watay madaxweynuhu wadada uu marayay laakiin ayaa muxuu tusaysay maamul xumadiisa iyo inaanu muxuu ahaaye waxba ka qaban dalka xildhibaan dadka deegaanka ka soo jeeda siyaasiyiintooda maalmihii ugu dambeysay waxaan arkaynay intoodii badnayd inay ka huleeleen xisbiga kulmiye una wareegaan xisbiga wadani maxaa kalifay baad isleedahay xilligan dadka deegaanka muxuu ahaaye aan ka soo jeedo oo kaliya maaha waxaad arkaysay habeen hore in muxuu ahaaye reerkii uu ka soo jeeday ee qoyskii madaxweynaha in muxuu ahaaye ka huleelan iskaga tageen muxuu ahaa oo ay tareenkiis beddeldoonka raaceen marka waxa kalifaya dee muxuu ahaaye anagu haddaanu reer saaxilnahay
waxyaabaha ugu waaweyn oo ka tegayna maaha muxuu ahay xilalkan iyo waxaan ay tabashada bulshadu qabto laakiin waxa weeye wixii reer saaxil dhisteen ee Somaliland ahaa ee qaranka ay dhidibada u taageen ayaa muxuu ahay murkucday oo Muuse Biixi fashiliyo muxuu ahay baabay si sumcadda loo soo celiyo way ka huleeleen tareenka isbedelkaana raacayaan xusbiga rajada ay ku biirayaan ee wadani way hore madaxweynuhu wuxuu la kulmay guddiga daniya duco ee deegaankaaga bal tabashadoodii maanu madaxweynuhu wax ka qaban waxaase u dambeeyey kii bilihii u dambeeyey ay guddiga daniya duco ay madaxweynuhu ku kulmeen oo muxuu ahay lagu kala kacay mar walba tabashada ay qabaan ee muxuu ahay deegaanadooda hadday tahay manaasib hadday tahay muxuu ahay waxqabad intaba ayay kala hadlayeen markaa madaxweynuhu dhegu ka furaystay daniya ducana waxay ahaayeen ashqaas ka soo kala jeeda muxuu ahay xisbiyada mucaaradka xisbiga kulmiye ka soo jeedaba marka intii mucaaradka hadda way nala joogaan way shaqaynayaan tareenka isbedelay la socdaan waxaan rajaynaynaa meerka ka hadhayna inay dhawaan nagu soo biiraan way xildhibaan siyaasiyiinta kala duwan ee xilalka ka haya xukuumadda ka soo jeeda deegaanada gobolkaasi saaxil inta badan waxay ku doodaan in madaxweynuhu wuxuu qabtay sidoo kalena ay xilal waafiya hayaan in arrintaadu maxaad kaga jawaabaysaa anigu waxaan kaga jawaabayaa waxna waxa weeyaan waa wax heer deegaan oo muxuu ahay regional waxna waa wax central government-ga dowladda dhexe wixii dowladda dhexe tabasho ka jirta ayuu muxuu ahay ay reer saaxil tabanayaan ma jirto laakiin wixii heer deegaana bay tabanayaan muxuu ahaa inta ugu badan ay ka tabanayeen waxa weeye waxqabad dhakhtarkii muxuu ahaayey loogu talagalay in muxuu ahaa uu fiidgareeyo gobollada bari ee muxuu ahay saaxil laga dhisay ee maraad ku dhisay baa xidhan muxuu ahaa biyihii baan waxba laga qaban caafimaadkii baan waxba laga qaban waxbarashadii baan laga qaban laydhkii baan xaaladiisa ognahay marka xilalka marka laga yimaado waxaa kaga sii daran xaaladda muxuu ahaay uu ku jiro gobolku ee muxuu ahaay waxbarasho biyo caafimaad laydh iyo wixii la halmaana dekadiiba iyadana muxuu ahaay aynu arkayno iyadana iskaan la keenay customs x-ray wax la yidhaahdo oo muxuu ahaa ay ahayd in free laga dhigo oo muxuu wasaaradda maaliyadda ay keento waxyaabaha ay muxuu ahaa ka shakidana ay ku samayso laakiin lagu naasnuujinayo muxuu ahaa qoyskiisa oo isaga iyo muxuu madaxweynaha ay wada leeyihiin ganacsado kale sida ila xogaal aan ku hayno arrintaad madaxweynaha u diraysaa xildhibaan maxay tahay madaxweynaha u diraya ugu dambaysa waxa weeye madaxweyne ha noqonin sidii muxuu ahay qorqodihii gabadha adhiga u dirto oo tiraa soo lisna way caanahay soo cabbi haddii aad tira dheriga karana dherigay sii cuni